السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد الله آدن شغالي برنامج كيني ديرجليتان كقيبتي سدحات maanta waxaan kaga hadlaynaa saddex kaloo camal oo aad iyo aad u wanaagsan iyaguna oo qof kasta oo islaam uu baahan yahay sababtoo ah barnaamijyadani inta badan waxaan kaga hadlaa wax dadka dhiirigeliya oo qofkan nolosha adduunyada dusheeda waxyooyinku ka rabo inuu ka hirgeliyo amba hadafyadu uu doonayo amba objectiveku doonayo amba dreamska ka dhex guuxaya uu gaaro waxyooyinka u fudeydinaya inuu qabto sida waxa uu xaqiijiyo maanta saddexdan waxay kala tahay aqoon amba cilmi naafica akhlaaqad wanaagsan iyo aaminaad kalsooni qofka lagu kalsoonaan karo kow aqoonta fiican maxay qofka u tartaa kow shakhsiyadiisa ayay wax badan u tartaa laba bulshada uu la nool yahay ayuu ku anfacaa saddex ummadda caalamka adduunyada ku dul nool dhan ayay wax u faa'iideysaa oo nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ku duceysan jira markasta ilaahu waxaad isiisaa cilmi naafica oo dadka wax tara laba aqoontu waa waxa quraate ee adduunyada iftiimisa oo waa kii lahaa aqoontu waa iftiinka nolosha marka qofku waxa loo baahan yahay inuu aqoonta barto meel kasta uu joogo waxaana u si fiican inuu barto aqoonta diinta islaamka sida uu camalka uu doonayo inuu qabto u garto waxaan uu qabanayo inay xalaal amba xaaraan tahay laba camal aad u wanaagsan oo ilaahayna quraankiisa ku ammaanay dadka fiicanna lagu ammaanay waa akhlaaqada wanaagsan qof kastana waxa uu doonaa inuu dabeecad wanaagsan iyo akhlaaqad wanaagsan inuu yeesho ayaana kaga daba dayan karnaa akhlaaqada wanaagsan oo noo tusaale ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa qofka adduunyada lagaga daba dayan karay akhlaaqada ah nabi maxamed waxaana ilaahay quraankiisa ku sheegay innaka la ala khuluqil azim isagoo ku ammaanaya nabi maxamed inuu yahay qofkii ugu dabeecad wanaagsan ama ugu dabeecad fiican adduunka dusheeda xagaas waxayna tusaysaa dabeecadda wanaagsan inay dad badan ku soo dhaweynayso saad u hadlaysid saad ula dhaqmaysid saad wax u bixinaysid saad ula fadhiisanaysid in laga dhac arko qof dabeecad wanaagsan oo rasuulku xadiis waxa uu ku yiri qofku ka dabeecad fiican yahay uu ka akhlaaqad fiican yahay ayuu aqalada jannada aqalada sare oo galaa tasaddexaad waxa weeji qofku uu yeelan karo qof la aamini karo wax loo dhiiban karo maal haday tahay sir haday tahay qof la tashan karo lagu kalsoonaan karo oo eebaha dadka asturi kara inaad noqotid sababtoo ah maanta caalamka inta badan waxa la raadiyaa dad lagu kalsoonaan karo oo siraha loo dhiibi karo ama maalka loo dhiibi karo saddexda amal adiga shakhsiyadaadan hadaad iska bilowdid waxaad arki doontaa bilo gudaheed muradal inay dadkiina ku jeclaadeen oo akhlaaqadaadii bedishay inaad aqoontaadiina kordhisay inaad ammaanadaadiina si fiican aad ula dhaqantay marka saddexdaas amal hadaan la imano qof kasta amba dad kastoo la noolnahay wana jeclaanayaan agta ilaahayna waa nagala jeclaanaya marka qof kasta uu baahan yahay haduu macallin yahay haduu professor yahay haduu madax yahay haday tahay hooyo haday tahay gabadh qof kasta waxa uu baahan yahay inuu yeesho aqoon wanaagsan iyo cilmi fiican iyo akhlaaqad iyo aaminaad la aamini karo